dhacdada foosha xun ee dagaalkii ka dhacay Baraabe waa wax aad iyo aad aan ugu xunnahay inta ku dhimatayna waxaan leenahay Ilaahay jannada Firdaws Allah ka waraabiyo laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan hal shay u sheego wadan dulum iyo fuqsi iyo dhibaato la leeyahay dawlad ayaa ka jirto aniga waxa waaye ma la rabo in la iska indhatiro wixii weesha ka jiro waxa loo baahan in waadax wax loo sheego wadankan dagaal sukaya ka dhacay qabaa'ilo la isku oran jiray ee Banaadir waxay ahaayeen Baraawe Marka Afgooye Bariire Awdheegle Xamar qabaa'iladii deganaa ee dhinaca qeyraadka deganaa ee Xamarka ama Gibilcadka ahaa ayaa waxa la sameeyay in dhulalkooda la qabsaday ayaa waxa lagu haystaa xoog waxaan aad iyo aad u cambaareynaa beesha caalamka oo ku bixinaysa dhaqaalo ummadaas abuse ku jiraan muddo 30 iyo beesha caalamka ku ayada in la xasuuqo ummadaas raali ka ah laakiin waxaan leeyahay dhammaan dadka ka soo jeeda goboladaas waa ogtihiin dhulka idinka iska leh qeyraadka idinka iska leh dibadda ku wada cararteen warnameeyo dhaqaalo hub lagu gado ee la iskaga celiya dadkaas laguna xureysto gobolada waa inaad ka shaqeysaan sababtoo ah maanta Afgooyo xur ma aha Marka xur ma aha Jilib Marka xur ma aha Baraawe xur ma aha xal abuse gareena la haystaa adduunka kama dhicin caalamka meel laga haysto shacab la haystayaal ah oo aanan waxba aanan ka heli karin shacab la haystayaal ah mi tusi kartaan caalamka meel lagu haysto waxa waa Soomaaliya waa bis gobolkiina laga qaatay xuquuqdiina laga qaatay dadnimadeena halis ugu jirnaa annaga gurigeena ku gambaneen adduunyada waxaan sheegaynaa beesha caalamka mar labaad iyo mar saddexaad inaad dhaqaale ku bixisaan ummad la haystayaal ah idinku tahay sharaf xumo idinku tahay dambi ummadda Soomaaliyeedna hadday jiraan dad culumaadiin ah waa inay arinkan waa u jeedaan war ilaa iyo 30 sano ilaa maanta shacab ma haysan kartaa marna shaati dawlad ma u gashan kartaa maanta in la dhaho goboladaas ay cidda doonad sheegato dambi idinku tahay wadankan wili ma soo dhabo waa wadan loogu talagalay in dadkii qeyraadkaas deganaa si xooga lagu haysto Baraawe cidda iska leh iyo historyga dalkan waa la wada og yahay dadka deegaanka 1300 sano ma jirin dadka hadda isku dagaalay Baraawe 1300 sano ma jireen masaajidada maanta ka dhisan ee gobolka Banaadir bax jaamacadda taga 1300 sano dhisay kan masaajid ka dhisan laakiin waxa waa la is abuse gareena waxa waa la is handada dhaqaalahan caalamka ku bixinay isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasule daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital